aynu ku bilownay laba askari ayaa ku dhintay 8 kalena way dhaawacmeen kadib markii qarax uu ku haleelay deegaanka Mildaqo oo 15 kiiloomitir ka xigta dhinaca koonfureed magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud. Askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay waxay ka tirsanaayeen qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka waday deegaanka hawlgallo kadana ururka al-shabaab. wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Shire Falagle. dhinacan bari magaalada Dhuusamareeb ayaa ayaabada qolooyinka waxba isku soo dhawaadeen ka bacdina maalmaha kan ciidamada xooggan oo Galmudug iyo Koolata isugu jira ayaa hawlgal ka waday deegaanadaas bariga fog ee Dhuusamareeb يا قاس مركا بابور سوي جدك سينا بدأ كل مرايي وعيدوا ليهم أشكال من الله قال حضي لبا منه إذا بدأ يعني كنت أنت الله من حديثه أخذت على بركة السلاسة حيث دجال إيو عابين ماشي في تباهين عندما دولة قلبي كوا أكلنا waxay isku fidiyeen deegaano dhowr ah oo maartay waxa caabinaya kaaba ay ku aad ugu durkeen kooxahaasina eedisana waa calaamado midooda deegaanka saacad wasiir deegaanka qaraxa lagu leeyahay ciidamada waa duleedka Dhuusamareeb qiyaastii dhowr iyo 10 kiiloomitirna u jira xaruntii caasimadda dawlad goboleedka Galmudug marka wali ma moodaa in shabaabku ay idinku dhow yihiin oo dhaqaaqyo ay ka wadaan deegaanada Dhuusamareeb hoostaga ma laba eegane waxa weeye in meesha ku la eegashada waxa la yiraahdaa inta la isku dhigo dadkii dhigay ay meelaha ka dhow yihiin oo ay ku qarxiyaan tan sida ma ahane meena dhulka ku jirtay hataa waxa laga yaabaa inay tahay dagaaladii sokeeyay ama dagaaladan ku horreeyay اللي فواد لو جرى أي شيء دوين انقرح أم باجري وحلا لا يكتر تحت الدوادي. شبابكو دقائق كودين عندما الدولة Galmudug يكون دولة فدرال كأزجر السنة جربنا كهلا يكون مدوج أفريقيا جارهان قيت جيبوتي وحي دجال لك وقادين دجالنا إفريسيم كل هاي شبابك دجالنا دي دولة goboleedka Galmudug iyo ciidamadii isbahaysiga ahaa ay la wareegeen yaa halkan ku sugan dowladda ku soo deegaanada Soomaaliya qorshahaana maartay in halkaas meel ka soo deegaana ay ciidamadu ay fuga ka sameeyaan oo ay deegaan istiraatiijiyad ahaan maartay ay noqoto meelaha maamulka uu shaqadiisa ka bilow dhaqaaqyadii shabaabku ay ka wadeen Dhuusamareeb iyo aageeda waa tii ay khalkhal gelisay dhaqdhaqaaqii shaqo ee garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb hadda xaaladii garoonka diyaaradaha dib ma u furmay iyadoo aan ognayn in maalmo kooban uu xirnaa ruuxantii arrintaasi wax sidaan horaba u sheegay waxay arrin aad loo buunbuuniyay oo maaragtay ujeedooyin kala duwan laga lahaa qaarkoodna ay u badnaayeen kuwa u shaqeynaya shabaab inay u muujiyaan inay wax yihiin marka garoon iyo Dhuusamareeb iyo waxaasuu arrintu halkaa way ka fogtahay bariga fog oo Elbur u dhow ayaa hawlgallada iyo ciidamada iyo arrimuhu ka jiraan maxaan ku raahdaa wadooyinkaas la isla maray oo maaragtay adigu marka hore miyiga fog ah dhulka maxaan ku raahdaa ayaa ciidamadoodu ay ku dhisan yihiin doorka Dhuusamareebna waa la furan yahay caqabad iyo mashaakil ka jiraan khasaaraha dhimashada gaarigii maanta labada askari ka soo maxaa kaloo khasaaraha oo ka jira dhaawaca dadna la wadaagtay ma khasaaruhu waa labaas weeye dhaawacuna waa dhaawacyo fudud dhowr qof waxaa kaloo jira saacad wasiir deegaanada dhaca dhinaca koonfureed ee gobolka Mudug waxaa ka socda dagaal u dhaxeeya xoolo dhaqata maleeshiyaad reemiye ah dhinaca kalena waxaa jira in deegaanada dhinaca waqooyiga ee gobolka Galgaduudna dagaalada ka socday bal dagaaladaasi iyo doorka dawlad goboleedka ay ka qaadanayaan sidii xal waara loogu gaari lahaa dadka walaalaha ay wada degan deegaanada ruuxantii shaqaaqooyinkaasi waa wax jira weeye waxaan isleeyahay shaqaaqooyinkaasi waxaa la rabaa in lagu curyaamiyo socodka looga soo jeeda cadowga iyo midnimada
iyo isku duwidda galmudug haatan u muuqata mid taabo gashay sideedana haddii galmudug qaabka siyaasadeed ama qaabka toolmoone ay haatan galmudug lagu wada leeyahay u shaqaynayso mar walba haddaanu mid cusub intaba samaysmayaan waxa wax ka wadaana waxaan leenahay kuwa sina walayaala